maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo buuraha Soomaaliya iyo quruxdooda iyo muhiimadda ay u leeyihiin guud ahaan Soomaaliya. Soomaaliya inkastoo ay inta badan caan ku tahay banaanada iyo dhulka doogga leh, haddana waxa ay leedahay buuro aad u qurux badan oo leh taariikh, cimilo kala duwan iyo muuqaalo dabiici ah oo soo jiidasho leh. Buurahaasi waxa ay inta badan ku yaalaan waqooyiga dalka, gaar ahaan gobollada Sanaag, Bari, Awdal iyo Togdheer. Haddaba soo dhawaada oo subscribe inoo saara, like-tana haynaga baqeelina. Buuraha Ceelmadow, quruxda ugu sarreysa ee Sanaag. Meesha ay ku yaalaan waa gobolka Sanaag, dhererka qiyaastii waa 2416 mitir. Waa kuwa ugu dheer Soomaaliya. Quruxdooda, cimilada qabow iyo hawada nadiifta ah ayaa ka dhigta meel lagu nasto. Waxaa ku yaala keymo cagaaran, geedo miro leh iyo dhir udgoon. Xilliga roobka, buuraha waxaa hareeya caaryaamo iyo doog cagaaran oo aad u qurux badan. Buuraha Suurad Caad, dhagaxyo cad iyo muuqaalo soo jiidasho leh. Meesha ay ku yaalaan gobolka Bari, dhererka qiyaastii waa 2408 mitir. Quruxdooda waxaa lagu magacaabay Suurad Caad sababtoo ah dhagxaanta cadaanka ah ee buurta dusheeda ka muuqda. Waxaa ka muuqda aragti fog oo xeebaha iyo badweynta ah. Xilliyada roobka waxaa ka da'aya biyo dhacyo qurux badan. Buuraha Golis, silsilada dheer oo cagaaran. Meesha ay ku yaalaan gobollada Sanaag, Awdal, Bari iyo Togdheer, dhererka ilaa iyo 2000 oo mitir. Quruxdooda waa buur dheer oo ku fidsan 100 kiiloomitir. Meelo badan oo ka mid ah waxay leeyihiin keymo iyo dhir cagaaran. Waxaa ku yaala deegaan lagu daajiyo xoolaha iyo goobaha beeraleyda. Buurta Sheekh, qabow iyo muuqaal dabiici ah. Meesha ay ku taalo gobolka Togdheer, deegaanka Sheekh. Quruxdooda waa cimilada qabow oo mararka qaar hoos uga dhacda 10 digrii. Muuqaalka ka soo baxa buurta ayaa gaadhaya xeebaha Berbera iyo dhulka bannaan ee Togdheer. Waa meel dad reer magaal iyo dalxiisayaal ku nastaan xagaaga. Buuraha Karkaar, quruxda dhulka iyo badweynta isku jirta. Meesha ay ku yaalaan Bari iyo Nugaal. Quruxdooda, buuraha Karkaar waxay ka mid yihiin kuwa ugu dheer Soomaaliya. Waxay si qurux badan ugu fidsan yihiin xeebaha dhow, taas oo ka dhigta meel muuqaalka iyo isku daraysa biyo buluug ah iyo buur cagaaran. Ugu dambeyntii, buuraha Soomaaliya ma aha oo keliya meel dheer oo dhagax leh, balse waa dhaxal dabiici ah oo leh cimilo qabow, dhir cagaaran iyo muuqaalo soo jiidasho leh. Quruxdooda ayaa ah mid qofkii arka uu qalbigiisa ku xasuusan doono. Waxayna ka mid yihiin hantida dalkeena ee loo baahan yahay in la ilaaliyo oo dalxiiska lagu horumariyo.